Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi markii diyaaradiisa weftigiisu ay soo cagdhigatay madaarka Jabuuti International Airport qolka VIP ee madaarka waxa ku qaabilay madaxweynaha dawladda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ay weheliyeen xubno kamid ah xukuumaddiisa si meeqaamkeedu aad u sareeyo oo milge iyo maamuus madaxtinimo leh ayaa loogu qaabilay waftiga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee socdaalkii ugu horeeyay ee dalka dibaddiisa oo madaxweynaha Somaliland ugu baxo Jabuuti ku tagay qolka nasashada qadar ay ku wada qaateen labada madaxweyne ee dalalka Somaliland iyo Jabuuti iyagoo iska wareystay xaaladda labada dal iskaashigooda iyo muhiimadda uu kulankoodani daaranaa kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo waftigiisa waxa loo soo galbiyay iyadoo uu la socdo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele hotelka uu ka degay magaalada Jabuuti ee Kambiski la yiraahdo si aad u sareysa ay jaaliyada reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Jabuuti madaarka ugu soo dhaweeyeen waftiga madaxweynahooda uu hoggaaminayo ee socdaalkii koowaad ee dalka dibaddiisa ugu baxo ku gaaray dalka Jabuuti ambassador Cabdi Saciid Ahmed safiirka Somaliland u fadhiya dalka Jabuuti ayaa madaxda iyo shacabka Jabuuti uga mahadnaqay sida milgaha dawladnimo leh ee ay dalkooda ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi بسم الله الرحمن الرحيم runtii waxaan ugu mahadcelinayaa marka hore mahad waxa iska leeyahay mar labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele golihiisa wasiirada xukuumadda mas'uuliyiin badan ayaa runtii madaxweynaha maanta Somaliland oo booqasho rasmi ah oo casuumada ku yimid Jamhuuriyadda Jabuuti ku soo dhaweeyay madaarka caalamiga ee Jabuuti waana runtii mahadcelin ku hadlay magaca madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa runtii mahadnaq weyn ayaan runtii halkan ugu soo jeedinayaa madaxweynaha Jabuuti iyo shacabkiisa xukuumadda sida wanaagsan ee full protocol-ka loo soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa safarkan ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda waxbarashada iyo sayniska cadaaladda iyo taliyaasha ciidamada booliska iyo badda iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid iyo Ibrahim Eagal oo meel kasta joogtaan bay ku dhaafaya Somaliland way horumartay dhigeedana wax badan bay dheer tahay oo ay kamid tahay dimuqraadiyadda nabadda iyo isku filnaanshaha iyo xiriirka wanaagsan ee ay la wadaagto dalalka ay jaarka yihiin inta ka horeysa waa Eagal iyo Akiid oo idin leh bye bye